magaalada Wajeer ayaa waxaa laga furay hotel casri ah waxaana xafladda furitaanka ka soo qayb galay gafanaha Wajeer xubno ka mid ah golaha shacabka wasiiro xildhibaanada hoose ee Wajeer culimo u diin iyo dad badan oo magac leh mas'uuliyiin ka hadashay furitaanka hotelkan ayaa soo dhaweeyay waxayna ku tilmaameen inay tahay arrin ku dayasho mudan shaqo abuurna ay ka heli karaan dhalinyaro badan Delewi tunasema hapa Wajir kila kitu inawezekana, biashara inawezekana, imekuwa mpaka udawali. Kwa hiyo Mheshimiwa Hassan ni mzee ambaye tunamheshimu kabisa. Nina furaha pia gavana wetu hapo hapa. Naona karibu kila mtu kutoka Wajir. Hii ni investment yetu. Wacha tu promote. Asri inshallah korba ka fiirsan yani wa biya akdir Nairobi ila marka shabaga sanadka khayr Allah kusii away wa arin aad wanaagsan wa arin qudayasha sida heshiis sheegay ma aha competition waa fiican xusuusantii in Garissa Lodge isli oo dhan Garissa Lodge la biyo la jirtay markaa hatta meeqaad dukaan oo ku yeeshay meeshaas waxa looga imaada marka isli waxa looga imaada ila Central Africa waxaan yeelaysay beecshiradaas badan oo isli isku imaaday ayaa magaalada kor u qaaday hawshan wajeedna saas oo ka rabnaa competition health oo saas ah marka ma culu إنك البحمد وابنكوا جاي عدا أنا ما أنا نفضي ينما كلام بعد واحد ما كمان هنا ويفضينا سيدا أي شيء ما لحظة إن المعرضي العكين وحي نيروبي جرا أنه كان كل أن اسم كل كل كان أي هنا دمبك يوم كثارة أكترنا ومعرضي مهنا يكويسين لفي كفاية hotelkan Albustan ayaa waxaa hirgeliyay senatarkii hore ee Wajeer Cabdiraxmaan Cali Xasan Colo aqalaha wadankan aan ku noolnahay in la soo kobciyo oo shaqo abuur dhalinyarada loo sameeyo oo ma aragtay wax lagu daydo laga sameeyo awadeed baan aniga ayaan u arkay inaan Wajeer waxan hotelkan maanta ka sameeyo dhalinyaradana hadii ay diyaar u yihiin inay ku daydaan dadka kale oo shaqaysanayo fursadaha waxay u noqonaysaa in ay la tababaro oo ay bedelaan raggan ayaga hadda oo qaarkood kor laga keenay boqolkiiba aniga ma shaqeynayaan hadda dadka korkiima dhalinyarada Soomaalida yaa qabanaya hadii accounting ay tahay hadii ma aragtay receptionist ay tahay hadii store keeping ay noqoto wixii u fudud ayaga Soomaalida waxay ka faantaa shaqooyinka qaar inaan ka faanama waa skillkii hadda develop gareyn karin baahi baad u dhimanaysaa Soomaali marka waxaan ku boorinayaa shalay ma ahayn sabtiga nin culimo ka hadlay youth politics nigan inaan la tagay oo sida lagu barto masterariga maaragtay weldingka dadkeena wax ma baran rabaan oo wax way baran rabaan laakiin farsamada gacanta ma ogola marka waa inaan isku daynaa in shaqooyinkan dadka meelaha kale ka imanaya ay qabanayaan dhalinyarada in lagu tababaro oo insha Allah xilka ay la wareegaan future-ka ay la qabto isku soo wada duubo waxa magaalada Wajeer sanadadan dambe ku soo kordhaya ganacsiyo waaweyn oo dhalinyaro badan shaqo abuur u sameeyay Xasan Mukhtaar Axmed Waayeelka warbaahinta magaalada Wajeer